السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحالي راها نبقى هذا يا مقعور كليتي قبوية. ما أنت وحن صوته بفيديو كان ساعة أمدي ذا وحلت اليوم وحياة بدن مركا أنا أقول حلا يا عمو إلهي هرت أمدي أنا ملك استيجوكتو أسكو حر وأسكو قلبي كلي أكدقو. وحالي راها أيامها روحها موضوع خلاف وين وكسعودة من صوماليا niman iyo waxaad haystaa odayaal baa haysta iyo qaar isku sheegaya aqooniyaan iyo siyaasiyiin. waxaa la yidhaahaa markaa anigu waxaan la talinayaa dhalinyarada gabooye meel kasta ay joogaan. waxaa la yidhaahaa beri meesha inaka ku harayna dadkani waa dad sii socda waxay doonayaan ayaamaha u hadhay intuu nin kastaba kiishkiisa buuxsado uu danteena uu burburiyo iyo maslaxadeena. horta waxaa ogaatiin haddaan nahay ummadda gabooye meel kastoo ka soo galno waxaa la yidhaahaa abti adeer ilma abti waxaa la yidhaahaa xasab iyo nasab waxaa la yidhaahaa waa iska qabnaa waa iska guursanaa innaka unbaa yacni dhexdeena ka warwareegnaa. marka anigu waxaan la yaabay dadkan isku sheegaya aqooniyaan amba salaatiin ee maanta ummaddeenii kala jarjaraya oo kala daadinaya. anigu maan arag hal suldaan intaan noolaa oo odhanaya waxaa la yidhaahaa dhallinyarta bal amudoobaan oo gacan kaliya ha noqdaan. waxaan arkaa uun salaatiin iyo aqooniyaan ummaddeeni hoos u dhigaysa oo iyagu dantooda uun eeganaya. nin kastaba cortiisa iskuul baa ku jira xukuumadahaasa ka bixiya amba isaga laftiisa dhaqaala haysta. marka waxaa la yidhaahaa dadka masaakiinta ee guryaha baaba-ay degan dabcan anigu fiideo waan soo duubnay meelahay dadkeenu degan yihiin iyo dhibtay ku nool yihiin. nolol ay ku nool yihiin soomaaliya ma jirto. markaasuu ku soo baxayaa mid lacag yar la siiyey amba in yaroo mijin qaada loo qaaday amba mid cuqdad qaba oo waxaa la yidhaahaa malaacintu wuxuu haystaa dhibaataba malaa xaasuu ka qabaa cidoo ciddaas ka soo horjeeda ma garata oo malaa dhibaatay u geysteen isaga shaksi ahaan. waxaa la yidhaahaa dad baa jira laa xawla illah walaa quwata ilaa billaah jaamacada ka soo baxay oo isku sheegaya waxaa la yidhaahaa digrii baan haysanaa iyo cilmi baan haysanaa. siay magacooda uga cararaan ayay cilmi u galeen maabay u gelinta ummaddeena wax u qabtaan. iyagii baa kala jarjaraya iyagii baa kala baabaynaya. siay magacooda uga cararaan ayay cilmi u galeen maabay u gelinta ummaddeena wax u qabtaan. iyagii baa kala jarjaraya iyagii baa kala baabaynaya. marka anigu waxaan leeyahay dhalinyarta gabooye meel kasta ay joogaan adduunka anaku ah ururka jiwayaan. anaku waxaan nahay urur maskax xoreyn ah marka ugu horeysa oo doonaya beritoole intuu dadkiisa wax u qabto. laakiin dhalinyartan waxaan leeyahay intaan daba socono raggaas ina kala jarjaraya ina baabiinaya magaceennii ku ciyaaraya marna magacii sheeganaya odhanaya anagu gabooye ah oo magaceena ku hadlaya mar dambena soo noqonaya oo kale waxaa la yidhaahaa anagu gabooye wax la yidhaahaa ma jiro. marka waxaan maleeyaa qof oo indhahaas ka tiraya uunbaa dee dadkaa u joojinaya. laakiin anigu waxaan leeyahay dadka ayaa loo joojin. dadkaas waxama inoo hayaan. ninka waxaa la yidhaahaa isaaq amba hawiye amba daarood u nacamleynaya isaga u taallaa. innaka waan tashanay haddaan nahay ururka jiwayaal. annaka qadiyaddayadu waa dadkeena uun soomaalida anaka waxma inoo khusaysa wax inaga khusaysaa ma jirto. danteenaan ku fikarno sidaan ubadkeena beritoole ay sharaf iyo karaamad ugu noolaadaan aanay noqon nafsi dhibaatooyinkeena iminkayna haysataa. sabir badan baa loo baahan yahay dulqaad badan baa loo baahan yahay. waxaa la rabaa dadkan yurub isqarqarinaya ee dhudhuumanaya oo magacoodii la sheeganayo iyaguna ka cararayaan magacoodii 300 oo euro lagu qaadanayo iyaguna magacoodii ay doonayaan inay ka tirtiraan adduunka. waxaan ka codsanayaa ilma adeerayaal sharaf yeesha oo dhig yeesha. soomaaliya dad baa lagu baabiyey. waxaa la yidhaahaa naagaa lagu qaawiyey naagaa wejiga laga jarjaray naagaa dhagaxa lagu dhuftay. marka naagaha haddii la dilo
karaamad la-aanta inoo hadhay horta waxay tahay horta raggan xukuumaddan leh wayna caawisay oo waxbayna siisay horta dadkeenan meydka naagaheenna iyo sharafteenan karaamadda lagu masaxayo horta waxay uga hadli waayeen maan arag cid ka hadlaysa laba cishuun baa la boodboodayaa hadhow toole nimankaa laftoodiiba lacag yar baa la siinayaa mid kastaba buulkiisa ku noqonaya xaaskiisa iyo carruurtiisa sharaftii gabooyaha iyo gabdhahooduna shaarica yaalaan marka anu waxaan odhan lahaa alaga fiicnaada waxaas waxaa la yidhaahaa qofka dhallinyarta gabooye caawisayoo waxbayna siisay horta dadkeenan meydka naagaheenna iyo sharafteenan karaamadda lagu masaxayo horta waxay uga hadli waayeen maan arag cid ka hadlaysa laba cishuun baa la boodboodayaa hadhow toole nimankaa laftoodiiba lacag yar baa la siinayaa mid kastaba buulkiisa ku noqonaya xaaskiisa iyo carruurtiisa sharaftii gabooyaha iyo gabdhahooduna shaarica yaalaan marka anu waxaan odhan lahaa alaga fiicnaada waxaas waxaa la yidhaahaa qofka dhallinyarta gabooye ee doonaya intuuna ku soo biirana nambaryadeeda way haystaan facebookyadeeda way haystaan adnala soo xiriiraan waxaan rabnaa muddo 10 sannadood gudaheed inta gabooyaha wax weyn iska badalo anu soomaalidinba u joojin oo soomaalidaas ay u istaagto gabooyaha wax laga barayaa soomaalida maanta ma jirto waxayna iskaashano tartiibino dadka xoog waxayna ka soo horjeedno taasun baa inoo hadhay haddaaba gaadhi sheekada dumarkeena inta la bahdilo karaamadda lagu masaxo ala yidhaha haddee waa dad midgaan weeyaan ma fahamte waa dad gabooyaa weeyaan ma fahamte markaa waxaa leeyahay raggan nacamleynaya iyo raggan isku sheegaya aqoonyahan iyo jaamacadaha ka soo baxnay horta hooyadiinu sheega waxaa wadiin iyo khilaafkaa wadiin idiin joojin mayno annagu waxaan nahay gabooya la yidhaahaa ninka diidsanna isaga u taallaa laakiin beritoole markay noo hirgasho yaanuna sheegan waxaa imika haysatid ku hayso taas waa ballan oo jasaakum allah alkheer nin kastaba hadalku ka leeyahay youtube iyo akhbaar iyo miidiya waa inuu xisaabsan yahay maantii dhallinyarteedana soo kacdo maantaasu baa lala xisaabtamayaa aana loo naxayn insha allah wallahi xataa aabbahay hadduu yahay jasaakum allah alkheer annaku cidna muu joojiniya annaku danta carruurteeda rabnaa odayaashana waa odayaal sii socda markaa u joojinana oran lahaa wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.